soo dhawaada daawadayaal waxaan maanta jecelahay inaan halkan idinkula wadaago mic nuucee ah ama microphone nuucee ah ayaad u baahan tahay in aad ku bilowdo YouTube channelkaaga. Haddii aad hore u lahayd channel waxaan isla eegi doonaa dhammaan wax walba oo aad doonayso inaad ka ogaato mic ku habboon channelkaaga amaba adiga kuugu habboon. Sidoo kale waxaad muuqaalkan markaad dhammaysato ogaa doontaa sida aan anigan hadda kula hadlayo u duubo codka una edit gareeyo. Dhammaan waxyaabahaas oo dhan ayaan maanta halkan uga hadli doonaa. Ugu horreynsa waxaan doonayaa inaan idiin mahad celiyo dhammaantiinna. Waxaad channelka gaarsiiseen 40,000 oo subscribe. Aad baad u mahadsantihiin. Waan idinka mahad celinayaa dhammaantiin intii subscribe-kii saartay iyo dhammaan intii saarinba iska daawo jirta muuqaaladeena. Aad baad u mahadsantihiin. Aan ka soo laaban halkaas una soo laabano muhiimadda muuqaalkeenan. Ugu horreynsa haddii aad doonayso inaad microphone soo iibsato, microphone nuucee ayaa kuugu habboon adiga. Runtii dhalinyaro aad u fara badan mar qaar waxay weydiiyaan war codka maxaad ku duubtaa, sidee baa wax u samaysaa, process aad marto waa nuucee. Waa arrin aad u fudud. Haddii aad doonayso inaad soo iibsato microphone runtii uma baahnid horta microphone qaali ah. يعني dhalinyaro aad u fara badan ayaa doonaya markay channel bilaabayaan inay microphone qaali ah ku bilaabaan. microphone-kaas ayaan u baahanahay, xamar ma laga helayaa, Soomaali ma laga helayaa. yani waxyaabahaas oo dhan marar badan ayay soo gaareen. balse haddii aad haatan anigii weydiiso microphone-ka aan isticmaalo waa microphone la yidhaahdo Boya M1. suuqyada xamar ku yaala meelaha elektroniga oo dhan waad ka helaysaa. lacagtiisan haddii aan kuu sii sheego runtii waa lacag u dhaxaysa $15 ilaa $20. waa microphone aad u raqiis ah. haatan codkan aan duubayana markii laga reebo xagga edit gareynta waxaan ku soo duubay isaga Boya M1 ayaan ku duubay. sidoo kalena waxaa jira microphone aan soo isticmaalay kaasoo la yiraahdo shotgun mic. wuxuu inta badan ku xirmaa kaamirada balse sidoo kale codkaaga waad ku duuban kartaa. balse microphone-kaas waxaan isaga reebay ama aan ku nacay waxay tahay xagga cod qaadista. yani dadka codadkooda way kala duwan yihiin. mar qaar waxaa laga yaabaa codkaaga inuu si nadiif qurux badan u duubo, mar qaar waxaa laga yaabaa inuu waxyaabo kale oo kala duwan wasaqa yani inuu waxyaabo badan geliyo. balse haddii aad isweydiin jirtay microphone-ka uu isticmaalo Cusmaan waa microphone-ka Boya M1 oo aadna ka helayso suuqyada xamar ku yaala oo dhan meelaha elektroniga waad ka helaysaa haddii aad weydiisato Boya M1. aan halkaas kaga soo gudubno marka microphone-ada aan isticmaalo aan u imaano marka sida aan wax u duubo. yani waad isweydiinaysaa marka microphone-ka markii aan soo iibsado sidee baan wax u duubaa. markii aad soo iibsato Boya M1 wuxuu kuu suuragelinayaa amaba kuu sahlayaa inaad kaamiradaad ku xirato ama mobilkaaga ku xirato kadibna aad codkaaga sida taas ku duubato. muuqaalkan idinkuma tusi doono qaabka kaamirada loogu xiro balse mobilkaaga ayaad ku xiran kartaa adigoo sidii iPhone-ka camal u gelinaya. aabkan marka codka ku duubo waa application-ka caadiga ah ee ku yimaada mobilada Samsung-ka ee voice recorder-ka loo yaqaano. inta badan mobilada Android-ka wuu ku yimaadaa waana midka aan isticmaalo mar walba markii aan duubayo codkayga. runtii application aad u fara badan ayaa jiro oo codka lagu duubo si haddii loo fiirina ka wanaagsan midkan lagu magacaabo voice recorder-ka ee ku yimaada mobilada. balse midkan ayaan codkayga ku duubaa. markaad codkaagii duubato marka waxaad u baahan tahay inaad codkii yar edit gareyso, ka saarto noise-kii, background noise-kii wax loo yaqaano. waxaan marka uga saaraa background noise-ka aniga ahaan Cusmaan ahaan application-ka aan isticmaalo ama software-ka aan isticmaalo waxaa lagu magacaabaa Audacity. Audacity haddii aad isleedahay mobile ayuu ku shaqeeyaa, mobile kuma shaqeeyo balse waa computer. waa application lagu isticmaalo computer-ka. waana application free ah oo aad ka helayso website-kooda ayaad kala soo degi kartaa. waana application runtii aad u khafiifa wax badan ka saacidaya. waxaad samaynaysaa marka codkii aad duubatay ayaad waxaad ku shubanaysaa computer-kaaga balse inta aadan ku shuban ka hor haddii aad sida aniga isticmaashay application-ka voice recorder-ka ee Samsung-ka ku yimaada waxaad u baahan tahay codkii inaad MP3 ka dhigto. sababta aad MP3 ugu dhigayso waxay tahay application-kan Audacity lagu magacaabo codka MP3-ga ma support gareynayo markii aad doonayso inaad xaggaas geliso amaba xaggaas aad import ku dhahdo. waxaad samaynaysaa marka sida aad marka codkaaga MP3 u dhigi lahayd ayaan ku tusayaa. waxaad samaynaysaa inaad soo gashato file manager-ka mobilkaaga kadib waxaad dooranaysaa marka halka codadka ay isugu yimaadaan ee audiyaha. waxaad halkan ka sii raadinaysaa marka folder-kii application-kii aad wax ku duubtay magaciisa. tusaalahaan voice recorder ayaan ku duubay. markaad voice recorder soo gasho marka codadkii aad ku duubatay voice recorder oo dhan ayuu halkan kugu tusi doonaa. marka codkii aad u baahnayd inaad MP3 ka dhigato ayaad dushiisa tegaysaa. xoogaa yar 2 second iyo bar ayaad gacantaada ku hay doontaa. kadib waxaad samayn doontaa inaad saddexdan dhibcood ee qaybta sare ku yaala inaad tagto. waxaad sii leedahay rename. halkan aad waxaad ka tirtiraysaa marka M4A. yani M4A uma baahnin, waxaan u baahnahay MP3 oo halkaas aad waxaad ku bedelinaysaa MP3. waxaad sii taabanaysaa marka rename. wuxuu ku leeyahay faylkan waa la bedeli doonaa yani ma ogoshahay kaliya waxaad leedahay marka change ayaad leedahay. markaad intaas soo samayso hawsha weli way socotaa. waxaad u baahan tahay in codkii aad ku shubato
kombiyuutarkaaga adigoo markaas isticmaali kara Zapier ama markaas USB ahaan aad ugu shuban karto kombiyuutarkaaga. Haatan waxaan gudageli doonaa cod edit garayntii. Saan hore idin ku soo sheegay softwareka aan isticmaalo waa softwareka la yiraahdo ama app-ka la yiraahdo Audacity. Audacity haddii aad markii ugu horreysay maqlayso runtii waa application iska khafiifa aad u jilicsan. haddii aad ugu tala gashana inaad maalmo kooban gelisana waad baran kartaa, balse haddii aad doonayso koorso dhammaystiran oo Audacity ku saabsiisan waxaan description video-gan kuu soo dhigi doonaa yar ka hadlay koorso ku saabsiisan Audacity ama comment-iga ugu horeeya ayaan bin idinku soo dhihi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. Haddaba Audacity-ga ayaan soo kacsan doonaa, software-ka ayaan soo kacsan doonaa. Audacity-ga interface-kiisa wajiga hore marka ugu horeysa aad soo kiciso application-kan sida tan ayuu ogyahay. Waxaad sameynaysaa marka codkii aad doonayso inaad edit garayso ayaad waxaad ku sameynaysaa drag and drop adigoo markaas ku sii dhaxdeynaya application-ka timeline-kiisa. Markaad ku sii deysato waxaad codkii aad doonayso inaad edit garayso sida tan ayuu timeline-ka kugu soo geli doonaa. Application-kana sidoo kale waxaad awood u leedahay inaad isla gudihiisa aad ku duubato cod, yacni codkaaga isla gudihiisa waad ku duuban kartaa, waadna ku edit garaysan kartaa. yacni waxyaabo aad u fara badan ayuu ku siinayaa. sidoo kale waxyaabo kale aad u fara badan, effects aad u fara badan ayuu leeyahay. يعني waa application cajiiba. haatan waxaan u baahanaa marka codkeennii inaan ka saarno background noise-ka. haddii aad doonaysana inaad effects kala duwan ku darto codkaagii waad ku daran kartaa, balse tusaale aan u imaano qaabka background noise-ka looga saaro. waxaad sameynaysaa marka hore codkii ayaad control A leedahay, codkii ayaad waxaad sameynaysaa inaad control A dhahdo si uu select inoogu saaro dhammaan. waxaad tegaysaa marka effects ayaad tegaysaa, hoos ayaad waxaad ka raadi doontaa marka meel ay ku qoran tahay normalize. waa muhiim codka marka hore inaad normalize dhahdo. markaad normalize dhahdo preset-ka ama default-ka ayaad sidiis ugu daynaysaa, kadib okay ayaad leedahay. waxaad sameynaysaa mar kale adigoo codkii uu ku dooran yahay ama select uu ku saaran yahay, effects ayaad ku laabanaysaa. waxaad dhimaad doontaa compressor ayaad dhimaad doontaa. sidoo kalena waxyaabahan default-giisa ayaan anigu inta badan isticmaalaa oo waxba kama bedelo. haddii aad adiga doonto waad ka bedeli kartaa oo codkaaga sidii aad adiga jeceshahay ayaad ka dhigan kartaa application-kan gudihiisa markii aad joogto. aniga sidiisa ayaan ku isticmaalayaa, kadib okay ayaan leeyahay. labadaas markii aad saarto codkii waxaad ka arkaysaa inuu isbedel ku yimid, yani compressor-ku wuxuu sameynaa codkii inuu sare u qaado hadduu codkaagii yani yara liitay. waxaad mar kale sameyn doontaa qayb kamid ah codkii, yani qayb kamid ah codkii ayaad waxaad sameyn doontaa inaad doorato. markaad qayb kamid ah doorato waxaad tegaysaa mar kale effects. waxaad halkan ka raadi doontaa effects lagu magacaabo noise reduction. noise reduction ayaad imaan doontaa. kadib aniga inta badan kan 20 ayaan ku daayaa, kan ugu hooseeyana waxaan ku daayaa 3. kadib waxaad leedahay marka get noise profile ayaad leedahay oo qaybtii aad soo dooratay ee noise-ka ku jiray application-kan uu aqoonsanayaa. kadib dhammaan codkaagii oo dhan ayuu wuxuu ka saarayaa marka noise-kii aad doonaysay inaad ka remove garayso codkaaga. marka qayb yar uu noise ku jiro ayaad soo dooranaysaa, kadib get noise profile ayaad leedahay. mar kale waxaad sameyn doontaa marka control A ayaad leedahay oo codkii dhan ayaad select wada saari doontaa. waxaad tegaysaa mar kale effects, noise reduction ayaad imaan doontaa. kadib preset-ka aan isticmaalo midka ugu sareeya waxaan ka dhigaa 20, kan ku xigana waxaan ka dhigaa 6 amaba 8, kan ugu hooseeyana waxaan ka dhigaa 3. marka sida taas ayaan u isticmaalaa aniga, balse adiga sidii aad doonto ayaad ka dhigan kartaa oo markaas codkaagii uu ku soo baxayo. kadib okay ayaad leedahay. waxaad ka arkaysaa haatan codkii inuu ka saarmay marka background noise-kii uu yahay cod nadiif ah runtii. qofkii markuu dhageysanayana uu dareemi doono inuu codkan u yahay cod yani laga soo shaqeeyay. waxaad sameynaysaa marka codkaagii ayaad dibad u saarnaysaa, file ayaad tegaysaa, kadib export ayaad leedahay. kadib filekii magac ayaad u baxsan doontaa, enter ayaad leedahay si uu markaas kuugu export gareeyo codkii aad markaas kusoo edit garaysatay application-kan Audacity. waana qaabka aan ku duubo codkayga kuna edit gareeyo. waan rajeynaa maanta kadib in aadan isweydiin doonin su'aal ku saabsiisan markaas qaabka aan codka u duubo una soo edit gareeyo. waana kaaga mahadcelinaa daawashada quruxda badan ee aad ku daawatay muuqaalkan ilaa dhammaadka. gabagabadii muuqaalka ayaana soo gaarnay. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.